السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وحبون داود إلى هالكن وعن الميديا كسر هذا مقالوريت كنا قد بدأت كم أغلى دونتان أو حكمدا عقبة فحسن أو لجيل يحمل السامي من كل ميديا والمشارحين معارض كأوسي وين التاجير مدهوين فرمات حلقان كديب خلاف كي أو الشيخ الشدا يسكب الدليل أو كان كدلك محاكة إن شريف الشيخ أحمد حسن علي قاهرة أيام مدحك الأيهرمود ويهين qorshaha lagu difaacayo madaxweyne farmaajo xilligan yaase ka dambeeyay arrinkaas xog faahfaahsan ayaa idinkaga hayaa saaxiibayaal. wararkii ugu dambeeyay kulamo xasaasi ah oo ka socda magaalada Muqdisho maxaa ka jira in mucaaradku oo soo kala dhaxgalay shaki weyn xilligan oo fursadii ugu weyneed ay ku haystaan madaxweyne farmaajo oo ay ku kala tageen siyaasadda dalka ra'iisul wasaare Roble ciidamadii ugu badnaa ee badbaado qaran ayaa laga saaray meelii ay difaaca ka sameysteen kuwaas oo u dhawaa madaxtooyada Soomaaliya. faahfaahin ayaa idinkaga hayaa yaase ka dambeeyay sababtaasi iyo ugu dambeyntiina beesha caalamka oo cadaadis xoog leh saaraysa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen uguna baaqday inuu ka qayb galo shirka wadatashiga qaran ee uu ku baaqay Roble. qodobada soo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan daawadayaal. intaan ku soo gudbin haddii ay tamir ku guurayso soo baqdo channelka Wacana Media fadlan subscribe oo muuqaalkan leega saar iskana share garay aad baad u mahadsantihiin daawadayaal. imikana aynu ku bilowno mowqifka midowga musharaxiinta oo kala ah Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Khayre iyo madaxweynihii hore ee dalka ayaa isbedel weyn ku yimid saacadihii la soo dhaafay kadib markii kulan is-afgarad ku dhamaatay ay la qaateen Cabdi Kaariye Qorqor waa madaxweynaha Galmudug. xog ay heshay warbaahintu ayaa xaqiijinaysa kulan dhacay talaadadii hore oo dhex maray xubnahan ayay isfahan ku soo dhamaaday lana doonayay in lagu soo afjaro culayska saaran madaxweyne farmaajo ee ka dhashay khilaafka u dhaxeeya isaga iyo Roble. Qorqor ayaa kulanka ku xusay inuu samarnaba doonaynin aysan dhici doonin mas'uul isaga ku hayb ah inuu siyaasadda uga bato xilligan, sidaas darteedna ay waajib tahay inuu difaaco xilligan madaxweyne farmaajo. daawadayaal, Qorqor ayaa ku kaftamay warkaasi. daawadayaal, wuxuu kale uu sheegay in haddii Roble wax kasta gacanta loogu rido soo kaftamaya in ay ka faa'iideysanayaan buu yiri Cabdikariin Guuleed Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dagaalka kula jiray buu yiri. waa sida uu Qorqor uu ku kaftamay daawadayaal. sida aynu ila xoogaal ka soo xignay kulankii Shariif Sheekh Axmed iyo Roble dhex maray isla talaadadaas daawadayaal ayaa isagana waxa aan ka soo bixin dadaallo muhiim ah kama aysan soo bixin kadib markii uu Shariif Sheekh Axmed oo Roble la wadaagay fariintii uu ka siday madaxweyne Cabdi Kaariye Qorqor oo madaxweynaha Galmudug. kulankaasi oo qaatay saacado waa Shariifka iyo Roble. kulankaasi kumuusa soo hadal qaadin Shariifku qorshaha wada hadalka ee madaxweyne farmaajo isaga oo u dhunduleelay sugayana mowqifyada kale ama waxa kale oo ka damacsan yahay ra'iisul wasaaraha waa waxa xige ama talaabada xigte oo ay qaadanayo. kulankaasi markuu soo dhamaaday kadib ayuu Shariifku wuxuu la wadaagay madaxweynaha Galmudug Cabdi Kaariye Qorqor inuusan andhaho ra'iisul wasaare Roble uusan doonin marnaba in uu la kulmo madaxweyne farmaajo taas bedelkeedana la caawiyo madaxweyne farmaajo. waa sida oo isagu uu warka u dhigay daawadayaal. sidoo kale waxaa caasimadda dalka ka soconaya kulamo isdaba joog ah ayaa ka jira caasimadda dalka kuwaas oo xal loogu raadinayo khilaafka hareeyay madaxda dalka. kulamada xal raadinta oo markii hore ay hormuud ka ahaayeen madaxweynaha Galmudug Cabdi Kaariye Qorqor ayaa hadda waxaa ku soo biiray mas'uuliyiin ka tirsan midowga musharaxiinta oo ay ka mid yihiin Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Khayre. sidoo kale
waxaa kaalin weyn ku lahaa baa leeyahay ciidamadii badbaado qaran in laga qaado difaacyadii meesha ay ku lahaayeen kuwaasi oo u dhowaayeen madaxtooyada Soomaaliya waxay u badnaayeen sidaan xogta ku helayno beelaha ka soo jeeda Xasan Cali Khayre iyo Shariif Sheekh Axmed kuwaasoo gebi ahaanba laga qaaday meelihii ay difaacyada ku lahaayeen dibna ugu laabtay meeshii hore ee ay joogeen daawadayaal midowga musharaxiinta qaarkood ayaa sidaasi laga soo xigtay daawadayaal iminkana waxaan soo garnay qodobkeenii ugu dambeeyay daawadayaal beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan saaraysa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen xilli uu mar horeba iska qaadacay shirka wadatashiga qaran ee uu ku baaqay ra'iisul wasaare Roble sheegeen taas beddelkeeda inuu ka qayb geliyo midka uu isna shaaciyay madaxweyne Farmaajo kulankaasi dhex maray beesha caalamka iyo Laftagareen ayaa culays xoog leh lagu saaraya madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen kulankaas kadib markuu dhamaadano waxa la rajaynayaa inuu waanta beesha caalamka uu qaadan doono ileen beesha caalamku kama dhamee Soomaaliya oo kulankaasi qaadan doono una ka qayb gali doono shirka wadatashiga qaran ee uu shaaciyay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble daawadayaal qodobkaasi ayaa wararkeena ugu dambeeyay daawadayaal intii aynu ku kulmi doono warkan iyo warka xigana waxaan ilaahay salaamu alaykum laakiin taan warka ka bixin janaalka subscribe dhaha oo muuqaalkan leega dhac noogu si aanu xoogahan iyo xoog kala xasaasiyad ku soo gudbina daawadayaal salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh